بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالي مثال عجب بدن بانارك إذن كنا واركتين إن بدن وكمده مركلنا مثال عجب بدن بانارك إذن كنا واركتين لكن عبرو إيو تصالة إنه قصة وحن حالي أركي اللباح أي كوح waraabayaal ah ama durwaaye dadka qaar dhahan qaarna waxa dhan waraabe ah taqriiban 200 ay meel ku heleen marka inay cunaan bay rabaan isna inuu iska dhiciyo raba waa libaax waa garanaysan waa laga wada carari jiray Soomaa laakiin koox 200 ah durwaaba helay wayna aad bay u rafaadiyeen meel xun bay xaaladu ka gaadhay meel markuu boodo mid baa dhinac qabsada waa ku dhagaa mid buu ku ordaa kii kala qabta isagoo xaaladu ku xunta baa meel fog waxa ka arkay saaxiibkii oo libaax kala ah orod buu soo qaaday suu u soo ordayay ayaa wuxuu ku qaaday olo kooxdii dhan hal mar buu dhaxmaray yacni minutes wax ka yar second ayay meeshii ku baneeyeen waa carareen labadii libaax baa isu yimid waxaad moodaa in laba qof oo is salaamaya meel bay fariisteen markaas dhinac loo seexay misaalkaas muxuu idin tusi karaa qofka kaliya sidaas loo cunaa qofka dad ku tiirsan sidaas uu badbaadaa misaalka kale waa mid aad aragteen isaguna labo ghazaal deerana dadka qaar baa yiraahda garanuugna dadka qaar baa yiraahda wad aragteen baan u falaynayaa wax badan oo kamida geesa leh labadoodii laba shay is cunaya iyagoo saa isu cunayo geesii iskula jira oo geesii isla galay oo kala bixi waayay boo libaax u yimid mid buu qabsaday iyadoo tii kale geesaa kula jiro halkii ku cunay waxa u haysa walaasheed midii kale u haysa way xajinaysaa tartiib meesha ku dhameeyay saasoo ku cunay labadoodu way is cunayeen laakiin cadowgoodii baa cunay waxaan dareemayaa inaad fahmi karaysaan ahamiyadda ay leedahay walaalnimadu ahamiyadda ay leedahay waxdadu ahamiyadda ay leedahay midnimadu iyo dhibaatada ay leedahay tafaraaruq iyo kala tago